ahlu naarka way ooynayaan naarta dhexdeeda ilaa uu ka soo daato ilintooda dhabanada iyo indhaha hoostooda uu ku soo daato ayadoo aad mooddo juduul waxaad u malaysaa meel biyo mareen oo kale ah ilaa ilinta ay ka go'do buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam wax allaala wixii ilmo ahaa wax allaala wixii ilin ahaa ee ku jirtay ilaa ay dhammaato ilaa ay go'do ayuu rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam ahlu naarku way ooyayaan cadaabka dhexdiisa waxay ka soo daadanaya indhaha biyaha indhahooda ka soo qubta ilaa aad moodda waadi markaa soconaya fayasiilu dam dhiig baa ka soo daadanaya buu dhahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilintii markay dhammaata waxay ooynayaan waa dam waxa ka soo daadanayo indhahooda ka soo baxaya waa dhiig buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam yursalu lbukaa riwaayad kale oohintaa lagu soo tuurayaa calaa ahli nnaar way ooynayaan ilaa dumuucdu ay ka go'do uma yabkuuna dam dhiig ayay ooynayaan xataa ay dhiiggii uu noqdo wejiyaalkooda uu ku soo daato oo xataa badnaanta uu ka qaba haddii sufuno iyo dooma la keena way ku socon lahaayeen buu yidhi sala allahu calayhi wasalam falyadxakuu qaliilan waliyabkuu kafiiran jazaa'an bima kaanuu yagsibuun in yar ayay qoslayaan buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala waa inta adduunka la joogo way oyn doonaan oo waxay oynayaan in fara badan waa inta naarta ay ku jiraan ma kala go'ayso kala go' ma laha maca daalika ayay ahlu naarku cadaaban yihiin walaalayaal qof kastow iska badbaadi inaad adiga ka mid noqoto waxaa lagu dadaalaa camalka saalixa ah qiyaamaha marka la taga nebi aadam buu ilaahay u wacayaa subxaana wa tacaala aadamow ka soo saar baa la leeyahay duriyadaada inta bictada loogu talagalay naarta imisaa naarta la gelinayaa ka soo bixi carruurtaada ka soo bixi aadanaha in allaala inta carruurtaada ah intii loogu talagalay inay ahlu naar noqoto yaa rabbi wa kam ilaahayow meequu leeyahay kunkii kastaba 999 dhinacu bixi waa ahlu naar buu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala hal baa soo haree daaya wa ahlu janno subxaanaka yaa ilaahay macaasida ma u jeedaan miyaa xumaanta badatay la arki maayo miya khayrka ilaahay laga ordaayo looma jeeda miya masaajidada faaruqaa la arki maayo miya goobaha cabayskaasay u buuxaan dadka loo jeeday maya sidaa darteed buu ilaahay yidhi kunkii kastaba aadamow 999 dhinacu bixi wa ahlu naar halka soo haraa janno loo dirayaa wadaalika yowm waa maalin buu yidhi ilaahay yajcalu lwildaana shiiba ciyaalkay ciroolayaal noqonayaan maalin kunkii qofoodba hal qof janno uu ka galay walaalayaal kun qofood oo kasta oo taagan maalinta hal qofood badbaaday ee mutaqaanaa firdowso aaday inta kale jahannamo ayagoo la jiidaya loo sii waday xaalku ma sahlana waa maalinta ciyaalkay ciroolayaal noqonayaan waa maalinta ciyaalka dhibaatada iyo mashaakilkay asiibayso sidaa markay dhacday saxaabadii waxay sameeyeen ayaa la yidhi oo qabarkaas soo gaaray qatow ru'uusahum madaxyaalkooday dabooleen camaamadihii ay haysteen bay madaxa ku dabooleen walahum khuniin ayagoo hooska ooynaya buu yidhi xadiidka khuniinka waa oohinta qofka celinaya sawdka sanka ka soo baxa ayagoo sidaa ah ileen kun qofoodba hal baa janno galay war kun qofood 999 baa naar aaday saxaabadii way ooyeen intaa wixii ka dambeeya waxay dhaheen mata najaad yaa rasuul allah goormeen badbaadaynaa yaa badbaaday yaa janno aadaya oo jannada gelaya rasuulkii ilaahayow intaa ka bacdi ayuu nebiga u bishaareeyey wuxuu yidhi abshiruu war bishaaraysta war waxaad ku bishaaraysataan khayr iyo wanaag mucdamkooda iyo inta badan waa ya'juuj iyo ma'juuj buu yidhi sala allahu calayhi wasalam bacdamay xaaladdu sidaa tahay qofka muslimka u aamin ma tihid war qofka iimaanka lahow mar walba dadaal war qofka iimaanka lahow rabbigaa ka cabsa subxaanahu wa tacaala maalinta qiyaamo marka la taga dadka waa la soo bixinayaa qubuurta jannadu waan soo tilmaannay yowma naxshuru lmuttaqiina ila araxmaani wafdan wanasuuqu lmujrimiina
ilaa jahannama wirdan qabrigaba marka laga soo bixiyo ayagoo wirdi ahoo ooman ayagoo xirxiran oo la jiidaayo ayagoo dhibaataysan ayaa dhanka jahannama loo kaxeeyaa buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala. haddaba xaaladdu waa sida naartu waa meel dhibaato badan, naartu waa meel aad iyo aad u murugyo badan. rasuulka sala allahu calayhi wasalam baa kusuuf u istaagay. maalin bay qoraxdii madoobaatay, salaada ayuu mixraabka galay inuu ummadda dujiyo. mar allaala markuu salaada galay ayuu horay u baxay sala allahu calayhi wasalam. saxaabadii way la hore dhaqaaqeen. cabbaar kadib ayuu gadaal u soo gurtay rasuulka sala allahu calayhi wasalam. dib bay u soo noqdeen ayagiina. rasuulka markuu salaadii ka baxay ayay weydiiyeen, sababta waan ku aragnay maxay tahay hor u socodkaagii iyo gadaal u soo socodkaagii? rasuulku wuxuu yidhi markaad ii aragteen in allaala inaan horay u soconayo jannadii baa horteeda la soo dhigay buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. sida xaa'idkan iyo derbigan oo kalea loo hor keenay. ilaahay waa kari karaa rasuulka inuu jannada hortiisa keeno subxaanahu wa tacaala. markaad ii aragteen inaan horay u dhaqaaqayo laamaha jannadii miraheeda ka mid ah ayaan damcay inaan soo qaada buu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. wallaahi hadday ii suurogeli lahayd oo adduunka aan keeni lahaa ilaa qiyaamo ay ka dhacdo waad cuni lahaydeen mana dhammaan lahayn buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam. waa meeshana loogugu talagalay inaan u shaqaysano. waa hal laamaheeda ka mid ah. waxa adduunka jooga oo dhan way cuni lahaayeen mana dhammaan lahayn. raashinna go'ay iyo dhibaataa jirta iyo biil baa la waayey iyo mashaakil baa dhacay iyo saliid baa la waayey iyo ma jirteena ayadaa idinku filnaan lahayd ilaa maalinta qiyaamo. ka warrama qofku ilaahay dhex geliye subxaanahu wa tacaala. markaad ii aragteen inaan gadaal u soo noqonayo dib u soo guranayo buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam. waxaa horteeda la soo dhigay naartii buu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam. meel mugdi badan oo madow bay ahayd, meel aad u ololayso holxiisa ayay ahayd. rasuulka gadaal buu u soo noqday asagoo dhahaya acuudu billaahi min annaar, naartaan ilaahay ka magan galay. gadaal buu u soo socdaa sala allahu calayhi wasalam. meesha iska ilaaliya buu yidhi, war ka gabadoo alla cabsidiisa ku dadaala. wax kale haddaad weysaan fa bikalimati طayib, war hadal fiican xataa ilaahay u hormarsada aad naarta uga badbaadiine. haddaad weysaan xataa sadaqa ku dadaala walow bishiqi tamr, jeex timireed baa ahaaday uga gabada naarta. acuudu billaahi min annaar.